bismillahir rahmanir rahim kulan waan dhamaan baaqiyarta hawada naga daawanaysay halkani waa Star TV xaruntiisa guud oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan soo gaarnay amintii aan hawadeedii soo marin jirnay barnaamijkeeni barnaamijkan baadiso ee lagu dhiirigelinayo soo nooleynta iyo daryeelka afka dhaqanka taariikhda suugaanta Soomaalida waxa hirgelisay isla markaasina gacan dhaqaale ka geysatay shirkadda kireynta iyo iibinta guryaha iyo dhulalka ee National Rental intii la socotay toddobaadkii hore barnaamijkeenan baadiso ayaa waxaanu ku soo qaadanay maansadii ugu horeysay ee Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Saada Cali Warsame ay ku lahayd silsiladii geyiga Soomaalida ka oogantay dabayaaqadii sanadkii 1900 iyo 1979 iyo horaantii 1980 ee Deeley oo markaa ay saado ragga ku taraxaysay oo aanu markaa waayadana soo wadnay suugaanta iyo markaa hal abuurka awoodda haweenka Soomaalida afartan maansolo ee silsilada hal abuurkii isku hayay ayay toosmaan sideedu abaaraysaa kuwaasi oo kala ahaa Maxamed Nuur Shareeco Ali Cilmi Afyare Cabdulqaadir Xirsi Yamyam Allah ha u naxariisto saddexdoodaba iyo Siyaad Daawud oo isagu markaasi ah sarkaal ka tirsan ciidamada maansolayaasha kale ee markaas Saada Cali Warsame Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ay maansadeeda Deeley markaasi kula safnayd waxa horiyaan u ahaa oo kamid ahaa abwaankii geeriyooday isna Maxamed Xaashi Dhamac Gaari Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye iyo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi markii ay Saada Cali markaasi warankeedii u horreeyay ka soo ridaysay Deeleyda ayaa waxa ay dib ugu soo noqonaysaa markaasi oo Saado ay la kulmaysaa ridooyin darandooriya oo ay soo celiyeen maansulayaashii kale ee markaasi ay gurufka ku wada jireen gaar ahaan abwaankii isna geeriyooday Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Ali Cilmi Afyare iyo isna Ilaahay ha u naxariistay abwaankii kale ee geeriyooday Maxamed Nuur Shareeco oo ku doodayay sidii aynu qaybtii hore ee barnaamijkeennii toddobaadkii hore ku soo xusnay in Saada Cali Warsame Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye markaa loo soo dhiibay Deeleydaasi Saada Cali Warsame mar labaad ayay toga Hargeysa ka soo ganaysaa waran labaad oo ay u halgaadayso tumaati ahaan nimankaasi odayaasha ee dabka ku kuleyliyay xarunta madaxtooyada ee magaalada madaxda Muqdisho gaar ahaan waxay maansadeedani ku shaambadaynaysaa oo ay daaqada kala baxaysaa Ali Cilmi Afyare iyo Maxamed Nuur Shareeco Saada Cali sidii aynu hore ugu soo xusnay barnaamijkeennii hore waa lagu xiray mowqifkeedan iyadoo xaamila ayay xabsiga ku umushay maansadu iyada ayaa ismacnaynaysaa oo far waaweyn isku qayaxaysa nuxurkeeda waxaana ay tiri waa Saada Cali Warsame maansadeeda labaad ee Deeleydeeda waxay oranaysaa dawo caafimaad iyo danyartaa saboolkee da'du ay u curatay dibka fuurka naaxee ku dibiray xaqaagii kuwa daafacayo iyo kuwa dibiyo hore docna aan ahayne istureen dulceeyiyo duqaydii gobeedow damalkaan harsanayne daalku nagaga ba'ayo dooroonayaashii dabiibayay cudurkow kuwa daayinkoodii
dilla gaara siiyow diricyada afmaalkow indheergaradka doodow salaan diiran oo wacan hargeysa aan ka soo diray yaan idinku deeqee dulahaan guddoomo murti duuban weeye durbadii labaad iyo iga hooya dulucdii dudubtaydii koowaad gabaygaygii aan diray darkii aan dhaliilaan yaraahays dul taago dilimahan aqaanaa barta socodka daawuus hadal ugu dayaanshay tu kalena ka daba timi waa dogob qalooco didib weeye qaraxo lugahaa daldalanoo maskaxda dayaanto waxaynu diidnaa waa u malabkii doocaan door waxaynu moodnaa dulmi bay u haystaan wax ma daadegayaan waxa ay la hadlaysaa oo saado ay markaa tuducyada ku duraysaa maansoolayaashii markaa ay maansada isku hayeen ee ay iyadu ka horjeeday iyadoo sii ambaqaadaysa ayaa mar kale waxay leedahay afartaba dab laga saar labadii damiineen u danee lahaaba doc kale iska taago waanadaydu deeqine imikaanse ugu dari runta diirka ka caddayn dibnihiisu kay shalay foolxumada doorteen daafkuu firdhinayiyo duufaankii uu waday intaan laba diblow xidhay aan ka dhigay dirayskii duhur seexdihii kacay dar alle wuxuu yidhi darmaan saado ina cali yaa rag soo dukaashaday kuse diiri maayee gaariyaa duraad yidhi dood weli tixraaceed daad waliba taagtii saba waliba deeqdeed dudo wali yagleelkeed damiir wali canaantii anna waxaan ku sii dari ninba aragtidii diray ruuxba dabaqadiyaad qofba garashadii daaq mid kastaa dareenkii darka soo dhigyo keen maansadaydii duubrida markaan saani ugu diray een ku duray halkaan rabay digtu nabarka xooggii dubbaa qayladiisii miisaanka dakharkii daryaankii ka soo baxay caligii istuube caliga ay sheegaysaa waa cali cilmi afyar oo isagu markaasi ay isku hayeen maansada intuu saa u sii dayey magacayga daba yaal nabaradii dalooliyo danqashadii xanuunkii ay ugu dareenoo saado waa la soo diray duqowbaa warkaa yidhi dabka kugu baxaayiyo dakhilkii aan kugu riday inay kaa dawaysaa waa habeen tegayadaa runtuyay ku diidine ha ka didin u soo durug gabaygayga daalaco hadda firin waa gabadh fallaadhahan ku dilaya waxa ay toos u amaaraysaa oo markaa saado ay diirka ka qaadaysaa dabuubtii ahayd saado cali gabayga waa loo soo dhiibay oo markaa ay taa deedafeenaysaa oo ay warcad intay ku sheegto halkaa shaaca kaga qaadaysaa inaanay maansada iyada markaas loo soo dhiibine ay iyadu leedahay markaa se laga diday oo loo dulqaadan waayey waxaanay odhanaysaa iyadoo markaasi ambaqaadaysa kuday deelka maansada deji oo ka laba qaad soo darceelka doogale durkiyo kusii laad durujaaga hoosiyo duqunku yaanu kaa garan waa danab labaadkii da'da baaqsatay maqal waa maansadeedii labaad bay sheegaysaa oo danab ka dhigan nimankaa ay hayeen ee markaa odayaashahana waxay ka dhigaysaa da' baaqatay ciro durugtay hoo daamanka hadlintaadii carab daalis mooye dux dhadhamiba kuma arag dhowr dub oo isdaba yaal dabaal joogta iyo siriq darab ceebsan maayo dadaal caadadaada ah ood diirtay weeyaan waxaan kuugu sii daray weligii layma dirin dabadhilif cid uma noqon adigoo wax dooniyo digtoor faalsaa mooye sida daabaca waaweyn damiir suuqa lagu qado wax dunuubaha qira dunidaba kumaan maqal waxa ay tilmaamaysaa in kooxda ay ishayeen maansooyinkii ay soo tirinayeen ay ka muuqdeen inay qirayaan dunuubtii markaa waddanka ka jirtay iyagana markaa ay farta ku fiiqayso inay qaybta ka ahaayeen waa sanadihii 1980aadka horraantoodii way sii wadaa saado haddana mar kale ayaa waxay leedahay marti lagu dukaansado adiga dugsi u galay oy dabeecaddaa tahay
damac ruux kaleetaa inta uu ku soo diro dookhaaga iibsado dilaal maanso dhaafsadaa weli waxaad dul joogtaa dac gudhiyo qallalantii ee aan dawaad riba farta kuugu duugo kuu saafo daribtee daraco waxaan ahay dahrigaaga maarta ah dabayl caafimaadoo daxal tiraysa baan ahay daasadaada boogta ah inaan kaa daluushaan gabaygu iigu soo degay daawo baajisaan ahay cudurrada aad daadihin danyartaan shimbiru ahay waana layga daahiray kaamana dabcinayo dooggaad ka daaqdiyo dakhilkaad bacrinaysiyo waxaan duugi maashada reerka degeladiisiyo dudada noogu seetay ha ku dego ha kugu duxo dul iyo hoos ha kuu galo waa dabarjabkaagee duuduubo oo samir daaf intiligtu duushaye adaa dabinka qoolee dulu yeela maansada ka durduuro waasade waa dubaaxayga qabo weli kaama daba hadhin weli way daba socotaa saade cali nimankaa ay durayso waxaanay odhanaysaa damalka layska shiisho culimadu ku duuliyo shaxda inaga daayo jagidu yaanay kaa dugin adig iyo damiirka horta wada dagaalama jilbahaaga soo duub didib aan qudnayn iyo ku dalooli naanida duurka cobolka laga cuno waa dulucu jeedale deji midigta oo daa waa maanso dahab xidhan murti weeye deedana daajiyay u naaxdaa waa hadal dulqaad badan dumar baana soo qoray deganaan asluub badan bay kugula doodaye car adoo aan daba gurin dariiqeeda soo mari weli kaama daba hadhin dad waxgarada baa yidhi waxaa lagu ducaystaa daayinow may yahaa aan wax nagu dirqiyi jirin dood ha nooga yeedhsin dubba aad ku samirto hadal aad ku daysiyo dalab aan ka soo helay degelkaaga calihoo diiday hee qabyaalade da'da kalena nagu yidhi doogiyo caleentiyo hay daaqda geedaha dudaha magooliyo waxay duurka mirataba marbay dabarka soo goyn soo raacay degelkiyo darwiishkiyo ninkii dhalay iyadoo dekaankiyo daaficiiba lagu dhayay dawankiina laga lulay dooxadii taleexiyo didibkiyo nugaashiyo damalkiyo bardaha baxay iyo dadabtii waytegi saade cali warsame iyadoo maansadeeda sii ambaqaadaysa oo markaa nimankii odayaasha ahaa ee maansada ay isku hayeen ay u tilmaamayso qaabka ay u doonayaan markaa inay ula safataa inay qaldan tahay ayaa waxay odhanaysaa deelkaagu yaab lehe danta guud ka tali iyo haddii daacadaa tahay dadkee iga xigsanaysaa yaan daaqa la cunaa xaggee iga dawaraysaa duurkeen ku noolahay duulkee i haysto dabarka aan ka goostaa bartaa waad ku dilan tahay malaa hoos umaadayin gabaygii aad duubtee giraantii dib ugu noqo isa soo sax dabadeed da'da kalena waa hee jawaab diiranigahoo dar allee adaa qaba dafac iyo dhukaanoo dunida yaad sadhaynine dibad ku-xidh ku fiicnaa dawiyo daymo weyn rabaa hadba danu dilaamow kama tegin dalkaygii amxaar daafi uma karin ruushku iguma doontaan dan kaley ka leeyiin xaylo sabadab uma noqon sidaadana ma damacsani daratoole iyo hawd dooliya nugaal godan ilaa dimis iyo xeeb saylac dacaladeedii deerka degelka soomaal afartiisa daamood dul ahaana ii siman duud la kala qalana male soomaalidu waa xidid iyo xigaal iyo xididda isku yaal ayay markaa saado dabuubteedu daaran tahay
iyo xilliga wadajirkii iyo markaa midnimadii Soomaalida loo duubnaa ee markaa la wada doonayay iyadoo sii wada ayay qolada markaa ay hayeen waxa ay ku dildilaacinaysaa erayo kale oo dab iyo naar ka kulul waxaanay markaa odhanaysaa sida tan soo socota mid sidaada daalina oo dan kale ku haysto shuux ku daatay mooye waa wada uliya diir darmaan godob la'abaanahay halkaan doono waan mari anoo daraya muus xidhan diibna madaxa ku afjaray yaan samaan dangiiga oo doobi qurux badan daawad iyo maandeeq lagu dawdabayaa caanahan durduurtaa kobtan dakhar ma kaa helay danab culus ma kugu dhacay weli kaama daba hadhin bir anoon kugu dayin yaan calow ku dooxo badankaaga daawaday oo wixii kugu duugnaa dibadda ula soo baxay darsi cilmiyadaadii danyartaad hodaysiyo dadka adiga kuu qaba inaad samo u daadihin waxaad daydayaysiyo digta adiga kuu daran aan kaa daadajee qabo watahay iyadoo saad oo weli maasida si wada waxay leedahay oo markaa qoladii sheegaysa inay qarannimada iyo ummadnimada iyo midnimada ay sheegayaan inay ka tahay afka baarkiisa iyo been ayay markaa waxay leedahay qaran inaadan doonayn isku duubni wadareed dan inaadan ka lahayn waxa taa daliil u ah rayigaagan daabacan odhaahdaadan deebtale adigaa durduriyo dalowga iska tuure ceebtaa dayaantaye dalka madaxda haysiyo dowladdeennan maanta ah ragga diiradda u sida badankoodu daaduun dugsiyaday ka fowseen waa kuwaad dacaayadiin daaraha camuudiyo sheekh iyo dayaxaweyn waxa doqonow soo maray aan damiina soo noqon musuq maasuq lagu dirin u aflaxay si daahira ragga calanka daafaca ciiddu ay ku dihin tahay intuu daaha kugu yimi duhur lagugu eedayn daalo maxaad ku gelaysaa wakhtigaa ku dilayee ha ku dego ha kugu duxo dul iyo hoos ha kuu galo waa dabargo-aaga duuduubo oo samir daafi diligtu duushae adaa dabinka qoolae dul u yeela maansada weli kama daba hadhin kuu dawaarshi geeskee deejiye aan ka dheelmado daada kalena waa hee wakhtigaa ku diidanay markuu sharafkii kaa degay haddaan daamo dhabanine doorkaasi kaa gudub inuu soo noqdana daa waxaan kaaga digayaa dacwaddaadu yay noqon ka yar iga dabaalo soo daa kayga weyn waxaan uga dan leeyahay raggaad u doobiday dabasxaab ma qaataan dalab wax uma dirayaan dambasaab ma qaataan dalab wax uma tiriyaan daandaansi ma ogola way kuu kitaabday iyayna samada kugu duban yaan daanka lagu dhigin taasi waa mid kuu daran igaho way sii wadaayo saado waxa ay leedahay mar kale duraankaaga sheekayn dembigaad samaysee laba garab ku daaqow degilkaad gashaamee taariikhda dib u raac doraad calanka Kenya dadku markay halgamayeen gobonimo u dirirkii waadigii dabraaye gumaystaha la duubnaa shalay dawladdii timi waadigii durbaan weyn iyo daramal qaatee ama daramal qaadee dariiqyada magaalada ammaan daadinaaye uunka daaya ku lahaa waa daacaddiiyo midi kama dambaysee maantana dan guudiyo samadooni mayside waxaad daydayaysaa runta diide beendoon waxaan jirin ku dararaha dhiig walaalkii dawdabay isku dabaqad joogaan wuxuu soo dilaacsaday danyar uu ka soo xaday aan lagu sii daynayn dayn ku ah wakhtigu qoray aakhiriya ifka u daran inuu kuugu rido digo ilayn
kama diqootide dux waxaan ku gelinayn dufnis aan macno lahayn berri aan dib iyo hore sandareerto iyo duuf damacaagu waa shilin qalbigaa daciif ka ah raganimo ku doodayn niyadaada dalaska ah damba aan wax ka lahayn dibnahaaga diiqa ah daaha dhaafin aragood dhegahaaga daarta ah aan wax dibad ka maqlahayn daloolkood hunguri yahay dareenkaaga lacagta ah aan wax kaleba deeqayn daramalkaaga buurta ah midabkaaga dahabka ah miinadu ku daban tahay aayadaa ka soo degay waxay halkaa ugu dulxulaysaa munaafaqnimo iyo markaasi uurku gaalnimo iyo waxyaaba lamida daramalkaaga buurta ah midabkaaga dahabka ah miinadu ku daban tahay aayadaa ka soo degay dowraad iyo injiil iyo dulahaan sabuur iyo furqaan diiday caynkaa dariiqaa wixii mara ma ammaanin daayini diintee ku dhaqantaa dhankaa daahiyada u xidhay deejee aan ka dheelmado da'da kalena waa hee horaan ula dardaarmo ku sii daahi maayee digtoorkii wakhtigu dabay ballaandaymo ku hakado tidhi kaala ila doon danyartiiyo saboolka ninkii xaday dadweynaha ku taabsiiyey daafaha ha ka doonin meel kale kow daalin waa adi aan ku laba diblaynay dalaq soo dhe adigaa dacwadda isku qaadee in dooraad cunaysay waxaad dagamsanaataba dildalihii ma kugu dhigay diiraddaa ku hayso deel la kor dhabay deel la hoos dhabay deel la goday dushaaday ku yiilaan deel la kor dhabay deel loos dhabay deel laa goday dushaaday ku yaalaan waa tahay way sii ambaqaadaysaayo saada waxay leedahay dhankaa daahiyada u xidhay da' kalena waa hee waxaan doodii uga baxay bulsho yahay digtoonow dacal xagaldaaciska ogow ka danaahiyaaye diintiisu lacag tahay dabicsane dhag ha u dhigin maan daciifka kaashaday adaa dunida joogiye ha durduuro maxastoo duuduubtay aramida sundudubiyahaa jira dix ku dhuunte ii qora diiwaan ku haydhigo qaladadaadan istaba yaal dibka jeeni dhaafshaa dunku soo xidhaa jabay dawlis xadhiga qaataa dadka madaxda ka xigsada diiwaanku haydhigo dablahaa siiyey janan amar diiwaanku haydhigo dablaha siiyey janan amar diiwaanku haydhigo halkaasaado waxa ay duurxul ku samaynaysaa waayihii iyo wacaalihii waagaas waa 1980 horaantoodii ee Soomaaliya wadankii kala daatay markaa ka jiray iyo sidii dawladda iyo madaxtooyada markaa loo kala xigsanayay ninka dablihiina markaasi uu jananka amarka u siinayay iyo waxyaalo lamid ah waxaanay leedahay iyadoo doodeeda markaasi sii wada daabacyadan iska hor yimi istirdiray iswada dabay diiwaanku haydhigo daacad iyo dembiilaha daje iyo dagaalame dire iyo ku dabajoog dafariya ka daabaqee kadediya ka daydayey waxay dool ahaataba maanta waysdul joogaan dayax way 15 dirilkiina waa kaa deeleyna way socon labadaa silsiladood ee haddaba siinley iyo deeley ee ay ragga ku taraxayeen labada hablood ee caasha iyo saado labadaba ilaahay ha u naxariistee iyo labadaasi markaa maansooyinkooda mid walba ay labada ku lahayd waxa ay leeyihiin la yaab hoosta ka xariiqaya qaninimada iyo qayuurinimada hal abuurka haweenka Soomaalida oo ka bareera xaalad kasta oo murugsan oo markaa nolosha kamida kana qaata markaasi mowqif aan gurgurtan kelin oo duug dhaxal reeba sida aynu caawba markaasi in ka badan 40 sanadood aynu caaw halkan ugu hayno saada cali warsame ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo iyo markaasi caasha jaamac diriye iyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye maansooyinkaas ay markaa hore tiriyeen ay ragga ku taraxayeen oo aad maanta moodo in labada maasaba ay nool yihiin oo waayaha Soomaalida ah ee jira ay ku soo dacalbayaan
barnaamijkeenii baadiso oo aanu caawa intaa kusoo gabagabaynayno waxaa barnaamijkan markaasi oo aan ku dhiirigelino soo noolaynta iyo kubcinta afka dhaqanka taariikhda iyo suugaanta Soomaalida gacan markaasi ka geysta dhaqaale oo fududeeyay shirkadda kiraynta iyo iibinta guryaha iyo waliba dhulka ee magaceeda loo yaqaano National Rent. toddobaadkani waxaa intaasi ku eeg barnaamijkeeni baadiso. barnaamijka waxaa idin daadihinayay Maxamed Baashe iyo Nashaad Farxaan Cali. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sarag maqal dambe oo xiiso leh. amba qaadka geedka sida urta loo raro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo adaniyo afwada jira amba qaadka geedka sida urta loo raro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo adaniyo afwada jira halisa kulebe halisa kulebe halisa kulebe halisa kulebe halisa kulebe